qof xabad ridi kara aniga ridin haddii gardaro jirtan wasaaraha lagu subinayo ama dawladda Soomaaliya lagu subinayo ama dadka Muqdisho ku sub ninka ugu horeeyo soo joogo u fadhiyaan madaxweynaha warqad uu soo saaray wuxuu ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha inuu ku fashilmay doorashadii qaabkii la rabay in waqtigeedii iyo daahfurnaanteedii uu qabto murashaxiintii xubin kamid ah tahay muxuu muuqanaysaa eedaas ra'iisul wasaare Roble madaxweynaha u jeediyay madaxweynayaashii gobolada iyo ra'iisul wasaarihii loo ilmaday hawsha in ay garab maraan xayrawsaadkii lagu heshiiyey in lagu doorto senatorada halkaas waa lagu xadgudbay madaxweynaha waa madaxweynihii dalka waa la doorasho ku yimid doorasho ma ku baxay qori ma ku baxay taas ogaada eedeynaa madaxweynaha ma ku baxay khilaaf isagii ra'iisul wasaaraha ay qaabkiis qabtaan ma ku baxay yaa u sababa jiitaankaas mas'uulka ugu sarreeya waxaa ra'iisul wasaaraha markuu ku saxan yahay inuu yiraahdo ra'iisul wasaaraha talaabada shaqo joojinta ah oo doorashadii ku fashilmay waqtigeeda gaarsiin waaye madaxweynaha sharciga u siinaa inuu hawsha fuliyo golaheeda wasiirada iyo waxaan ka rabnaa inaysan kala qaybin inaysan ciidamadii hoos uga hadlin wasiir inuu hoos ciidan ka soo abaabul madaxtooyada ku yiraahdo ha lagu dhufto xabad suuragal ma shalay dhan taliyaasha ciidanka ma seexan hadalkaas iyo warqadaas madaxweynaha uu soo saaray ciidamadaas ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa lagu xiray ee ra'iisul wasaaraha shaqada loo diiday ma u ekeed afgembi sidii ra'iisul wasaaraha u sheegay ma kuna muuqanaysa shaqadaas asaga qortay anigu waxaan sheegaa kaliya wuxuu tabanaya qaabka u arko inay ugu qori soo qaadan oo qoraal ku soo saaro ama warqad oo wifti ku soo saaro xaq u leeyahay wala xagana wala liixira aniga asaga lama xiran wali may waxaan rabaa inaan ku sheego waxaan ku sheegayaa ra'iisul wasaaraha waxaa rabaa wixii qalad ku suubsan isla markii waa la saxshay xafiiskiisina waa loo furay maamulkaas aan oo dhisan marka waxay naga mudan yihiin bilad maadaama ay yiraahdeen ay ku taageereen ra'iisul wasaaraha in madaxweynaha afgembi uu rabo ay yiraahdeen ciidamada dalka difaaci lahaa la soo baxsho xalay ilaa ay shalay ay joogeen xafiiska ra'iisul wasaaraha intaas oo dhan waxay shacabka Soomaaliyeed ka mudan yihiin midowga musharaxiinta in bilad la siiyo maya adaa taas tiri anigu waxaan ku 3 sano ayagoo afgembi waa naqaanaa anaga nin ciidan ah madaxtooyada hoos degan ciidanka ugu badan madaxtooyada ninka iska leh oo soo xariir ciidanka USC dhan meesha joogaan farmaajo ciidankiisa aad u yar ciidanka xasan shar ciidanka USC u badan magaaladan waa xamar aliya ra'iisul wasaaraha wuxuu yiri kama amar qaadan karaan madaxda ciidamada ra'iisul wasaaraha cidii ka amar qaadatana tallaabo sharciyan ka qaadaya waa in aniga iga amar qaataan madaxda ciidamada qalabka sida hadalkaas xilligan ra'iisul wasaaraha inuu ku hadlo ma yahay mid loo qaatay Ramadan waxaa lagu dhigo madash hadda madashii haysataa madaxweynahaada iyo adiga wixii wada hadal ah waa lagala shaqeynaya wixii haleysan waa lagala shaqeynaya adigana in aad yaraysid in reaction degdeg ah soo bisid way aan ugu baaqay karaha uu hadlay wuxuu yiri madaxweynaha wuxuu isku dayay in afgembi dalka uu ku qabsado waana ka hortagnay uuna dhicisoobay afgembigaas uu damacsanaa xafiiskayga la soo weeraray inaan gurigayga ka soo baxaa la diiday shaqadeeda laga hor istaagay u muuqanaysay hadalkaas mid uu xaq u lahaa ra'iisul wasaaraha inuu yiraahdo madaxweynaha waliba madaxweynaha ma dhahin wuxuu yiri madaxweynihii hore afgembiga dalka laga macsanaa hadalkaas ay u dhignaa inuu doorashadii wuxuu leeyahay madaxweynihii dalka waay wuxuu u arko inay cadaalad darro ka jirto ama nidaam ka jirto inuu talaabo ka qaado waa midii loo ilmado